ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliya oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano NISA ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport ay ku soo qabteen rag ku howlanaa samaynta lacago been abuur ah. ciidamada oo xogtooda ku soo gudbiyay bogga ay ku leeyihiin Twitter-ka ayaa sheegay in xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka uu xogta la wadaagay isla markaana ka caawiyay soo qabashada raggii arrintaasi ku howlanaa. waxa ay sheegeen in 2 qof oo arrintaasi lala xiriirinayo gacanta lagu soo dhigay isla markaana rag kale oo lagu toonsan yahay inay qayb ka ahaayeen samaynta lacagaha faalisada ah lagu raad joogo. ciidamada NISA ayaa xog ay ku soo gudbiyeen bartooda Twitter-ka waxa ay ku xaqiijiyeen in ragga kale ee lagu daba joogo isla markaana iyo ragga la qabtayba sharciga la marin doono. ma aha markii ugu horeysay ee ciidamada NISA ay xog ku soo gudbiyaan barta ay ku leeyihiin Twitter-ka. bilihii u dambeeyay oo dhan waxay isticmaalayeen bogga ay ku leeyihiin Twitter-ka si ay ugu soo gudbiyaan howlgallada gaarka ee ay fuliyaan iyadoo aan laga bixin xog dheeri ah oo faahfaahsan.